Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena BMA Production oo anigoo ah BMA. Sida shaashada ciwaanka muuqaalka aad kasoo aragteen, muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sir ku jirta taleefanka, gaar ahaan taleefanada Samsung, firshanada u dambeeyay Android 10 ilaa Android 9. Marka daawasho wacan. Sirta koowaad, waxaan rabnaa inaan ogaano batteriga percentage-ka uu marayo. Hadda kaliya waxay ii saaran iconka batteriga, sida tan oo kale. Tusaale 34 ayuu marayaa batteriga, 34% ayuu marayaa. Marka waxaan rabaa inaan ogaado taleefanka batteriga intuu uu marayo percentage ahaan. Marka waxaan sameynaynaa, waxaan soo jiidaynaa notification-ka. kadib waxaan sameynaynaa anigoo soo wada jiidayno ilaa hoos. kadib waxaan taabanaynaa calaamadda saddexda dhibic. markaad taabato waxaa kasii dooranaysaa status bar meesha ku qoran tahay. keliya waa Android 9 iyo Android 10 firshanada, yani taleefanada ku imaado Android 9 ilaa Android 10 oo keliya ayuu ku shaqeynayaa. yani hadda kor waxaan soo dhigay muuqaal oo ku saabsan sir ku jirta taleefanka. waxaan kusoo dhigayaa qaybaha meelahan kore ayaan soo dhigayaa, halkaas ayaad ka daawan doontaa. marka waxaan sameynaynaa, waxaan taabanaynaa show battery percentage. waa ujeedaa haddaad taabto wuu qarsoomayaa. haddana on dhaho waa kaasaa ujeedaa 70% ayuu ii marayaa. sirta labaad, waxaan rabaa inaan notification-ka oo markaan sando oo iisoo qabto. tusaale sida tan oo kale, markaan sando inuu iisoo qaban karo. hadda tusaale kan haddaan sandaho keliya waxay iisoo qabanaya application-nada. marka sidaas darteed waxaan u baahanahay inaan sandaho oo notification-ka wireless-ka iyo sound-iga meelahaas inay iisoo qabtaan. marka waxaan sameynayaa, waxaan riixayaa home. markaan riix kadib waxaan aadayaa home screen and settings. meeshaan ayaan taabanayaa, hoos ayaan imanayaa. waxaan daarayaa oon dhahayaa swipe down for notification panel. kan ayaan on dhahayaa. kadib markaan on dhaho caadi waa kana notification-ka hoos soo noo imaaday. sirta saddexaad, waxaan rabaa inaan ka dhigo taleefanka dark mode, yani si aan batterigayga u ilaashado. hadda meeshan waa cadaan, gudaha waa cadaan. marka waxaan rabaa inaan dark mode ka dhigo ilaa WhatsApp-ka iyo Messenger-ka iyo meelahaas oo kale, iyo YouTube-ka inaan dark mode ka dhigo si aan batterigayga u ilaashado. marka waxaa imaanaysaa setting-ka ayaad imaanaysaa. marka imaado waxaad taabanaysaa display. markaad taabato hadda aniga waxay ugu jiro version-ka u dambeeyay Android 10. marka haddii aad wadato Android 9 iyo wixii la midka ah, marka waxaad sameynaysaa setting-ka ayaad imaanaysaa. setting markaa imaado display ayaad taabanaysaa. meelay ku qoran tahay night mode, meeshaas ayaad taabanaysaa. aniga si kale ayuu igu soo qabanayaa. ama waxaad sameynaysaa notification-ka ayaad soo jiidaysaa. meeshaan ay ku qoran tahay, yani kor notification-ka ayaad ka helaysaa. sida anigoo kale waxaa ugu qoran dark mode. haddaan taabto waa kaasaa, night mode-na waa kaasaa. mujeedaa taleefanka wuxuu noqday madow ayuu noqday. sirta afraad, waxaan rabaa inaan taleefanka aan ku sameeyo speedkiisa mid aada u sareyso. hadda labadan taleefan oo kale tusaale ayaan tartan gelinayaa. fiira hadda labada mid ayaa soo hormaraya. waxaan taabanayaa call icon-ka. mujeedaa kan ayaa soo hormaray, yani kan ayaa ka lacag badan oo kan hadda 4GB ram waaye, kan hadda 2GB ram camal waaye. marka sidaas darteed waxaan rabaa inaan speedka taleefanka aan ka dhigo mid aada u sareyso. marka waxaan imaanayaa setting-ka ayaan imaanayaa. setting markaan imaado waxaan imaanayaa about phone ayaan imaanayaa. kadib waxaan sii taabanayaa software information meeshay ku qoran tahay. kadib waxaan taabanayaa build number meeshay ku qoran tahay.
waa ku celcelinaya ilaa 7 mar ayaan ku celcelinaya. Kadib wuxuu weydiinaya password ayuu weydiinaya. Passwordka ayaan gelinaya kadib waa passwordka taleefanka ku xiran yacni waa ka laabanaya. Waxaan imaanaya developer option bahashan ayaa iisoo furmayso. Kadib waa taabanaya hoos ayaan imaanaya ilaa aan ka aragno animation, windows animation, transition animation iyo kuwan ilaa aan ka aragno. Marka waxaan sameynaynaa kan koowaad waxaan dhahaynaa dhibic 5x meesha ku qoran dhibic 5x kaas ayaan dooranaynaa. Kan kalena sidoo kale, kan kalena sidoo kale, saddexdood sidaas ayaan ka dhigaynaa. Marka hadda fiiri speedka aad ayuu u sareeyaa majeeda speedka aad ayuu u sareeyaa. Sirta u dambeysa aan muuqaalka kusoo gebagabeyn doono waxa uu noqon doonaa kaliya wuxuu ku shaqeynayaa Android 10 One UI wuxuu ku shaqeynayaa 2.0 iyo 2.1 labadaas bis ayuu ku shaqeynayaa. Marka waxaan imaanaynaa setting-ka ayaan imaanaynaa. Waxaa rabaa hadda gallery-ga maaragtay meeshan wallpaper-ka inuu isbedbedelo sawirada maaragtay sawirada mujeeda isbedbedelaya marba sawir marba wallpaper ayaa isoo qabanaya. Marka waxaan rabaa sidaas inaan sameeyo. Marka waxaan imaanaynaa setting ayaan imaanaynaa kadib waxaan raadinaynaa wallpaper meesha ku qoran tahay waa taabanaysaa. Sidaan uu kugu soo qabanaya. Waxa laga yaabaa si kale inuu kugu soo qabto live log wax saas camal inuu kugu soo qabto ayaa laga yaabaa. Marka waxaad sameynaysaa hadaa aad haysato maaragtay sawiraan oo adiga gooni ku ilaa 10 xabo ilaa 15 xabo oo aad rabto inaad saarato lock screen-ka, waxaad taabanaysaa gallery ayaa taabanaysaa soo dooranaysaa dhammaan sawirada. Ama hadaad rabto sawiro oo maaragtay loogu talagalay taleefanka oo waa la soo degsanaya yacni. Hadda waxaan taabanaya wallpaper surface kadib waxaan kasii dooranayaa dynamic log. Meeshan qaybtan dynamic ayaa tick saaraya. Kadib waxaan imaanayaa qaybtan yaroo icon-ka ah. Kadib waxaan kasii dooranayaa select categories. Markaad doorto waa ujeedaa intaan xabo bis ayaa ii furan. Marka intaan mid ayaan ka dooranayaa. Qad ayuu u baahan yahay aan hadda qad iima furno. Marka intaan mid ayay soo degsanaysaa kadib asiga yacni isku xiraayo hadhowna maaragtay sawiraantu isbedbedelayaan. Markaa xirto markaa furto way isbedbedelayaan sawiraanta. Intaan ayuu muuqaalkeenu ku egyahay. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen dhammaantiina. Inta aan muuqaalka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.